bismillaahi raxmaani raxiim waxaan daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan haddii barnaamij uu ka noqdana waxaa qayb ka noqonaya Iiraan markan digniintii ugu dambeeyay ayay dirtay iyadoo la warinayo waqtigan in waliba la qorsheeyay qorshe kasta oo iyadu ay u taalay ama gebi ahaanba inay ka saarto liiska madow dagaalka ka dhanka ah ee Mareykanku waa ay diyaariyeen oo walibana qorshahooda ku aadan waa un kaliya intaasoo talaabo u qaada Mareykanka haddaba maxaad ka ogtahay in qayb badan oo kamid ah shaqaalihiisa ku sugnaa Mareykanka dalkaasi Baaruud xilligan uu kala sii baxayo iyadoo xilligan u muuqato in xiisadda ay sii kordhayso talaabooyinka labada dhinac ay qaadeen ayaa u muuqata waqtigan in mar kale saameynteeda si weyn ay u yeelan karto haddaba Iiraan talaabada xigta ay qaadi doonto ma noqon karta hadiiba marba digniintii ugu dambeeyay ay dirtay in ay toos gantaaladeedu ay ugu dirto iyadoo wali la warinayo in ay jiraan in markaasi nuclearka kuwada blastiga ah ee dhankan Israel ay ku soo jeedisay talaabada tani ee waqtigan imaanayso saameyn kale ma ku yeelan karta xulufaysiga ka dhanka ah Iiraan waqtigan iyadoo waliba hogaamiyaasheedu ay u diyaarsan yihiin weerar kasta oo ugu imaado in jawaab degdeg ay ka bixiyaan qodobadaas iyo waliba wixii kale nagu soo kordhayaan ku qaadan dhigi doona saaxiibayaal idinkana nooc imaamada oo channelka subscribe noo saar like tana saaxiibada hore inoo joogo saaxiib badan ayayna tusaysaa inaga akrinina ma sanadin soo dhawaada markale Ramadan Kareem qaybtan waa qaybtii labaad waxaan idinku la wadaagi doonaa digniinta Iiraan ay dirtay iyo waliba qorshaha ay ka leedahay waqtigan qodobada ay soo saartay sida loo maareyn doono dagaalka ka dhanka ah talaabooyinka xiga ay qaadi doonto Mareykanku ma iyada weerari doono ma iyada wax weerari doonto iyo waliba waxyaabo badan oo la xiriira waxa inta badan la warinaya Iiraan iyana markaasi waxay si weyn ugu digaysaa suurtagalnimada weerarka Mareykanku inuu ku qaado dalkaasi uusan ku haboonaan doonin labada wadan oo kaliya afayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in aysan jirin wax la yiraahdo weerar xadidan oo markaasi howlgal kasta oo ka dhan ah Iiraan laga bixin doono waa jawaab adag ayuu yiri mid la mid ah ayaan isku daynaa inaguna inaan bixino hore ayaa qaar ka mid ah warbaahinadu waxay markaasi ugu waramayeen in Donald Trump uusan markaasi ku fiirsanaynin weeraro aan markaasi xoognayn oo ku aadan markaasi inuu ku qaadi doono Iiraan iyo waliba si markaasi jamhuuriyadda islaamiga ah markaasi uga qabsashada Iiraan in ay markaasi aqbasho doodiista ku aadan Mareykanka isla markaana heshiisna ay la gaarto barnaamijka nuclearka Israel waxay markaasi sidoo kale ay ka digtay weerarkan argosiga ee markaasi Iiraan ay ku qaadayso dalalka ay markaasi u nugul yihiin way taariikh ahaan ay markaasi u gasho jamhuuriyadda islaamiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markaasi isweydiinaya sababta Iiraan markaasi aysan wali isku dhiibin iyadoo aan markaasi wajahadaasi dowlatus military iyo waliba Washington ay ka wadaan bariga dhexe sida markaasi uu sheegay ergeyga gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wali ma jirto talaabada tani ay si adag u qaadayaan Iiraan oo waliba kama dambeys ugu dhigtay hubkeeda nuclearka iyo waliba heshiisadan ay gebi ahaanba ay ku laali doonto oo waliba lagu cadeeyay in heshiiska laga gaari karin barnaamijka nuclearka ee Tehran wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa markaasi sidoo kale axadii sheegay in markaasi uu aaminsan yahay in ay wali jirto fursad markaasi lagu xalin karo khilaafka si markaasi diblomaasiyadeed iyadoo markaasi lagu saleynayo nidaamka guul ah waxa uu sidoo kale uu sheegay in talaabo kasta hadii Mareykanku uu la yimaadona ay gebi ahaanba markaasi ay ka hortagi doonaan iyadoo qorshaha ugu adagna ay tahay talaabada waqtigan Iiraan ay u qaadi karto maadaama mas'uuliyiinta ugu sareeya Iiraan ay talaabadeeda mar hore ay qorsheysteen taasi oo lagu saleynayo waqtigan in gebi ahaanba ay ku burburin karaan oo walibana ay u qorsheeyeen in gebi ahaanba ay daaqada ay ugu saaraan Iiraan waa markii ugu dambeeyay bay tiri oo aan qoraal ka soo saarno doorka iyo dagaalka ka dhanka ah Mareykanku waxaa si naga go'an inaan gebi ahaanba ama aan bas beelno ama aan wax bas beelino waana talaabada ugu adag waqtigan ee aynu go'aankeeda aan gaarnay ay yiraahdeen waaga dhinaca kale Mareykanku isla markaasi ka daadgureynaya shaqaalihiisa dalka Baaruud xilli ay xiisadu markaasi ay sii kordhayso waxaana laga baqdin qabaa in daadgureynta shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan Baaruud markaasi ay saameyn kale ku yeelan karto dagaalka ka dhanka ah Iiraan iyo Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa amar ku bixinaysa in dhammaan shaqaalaha ee aan markaasi dadka muhiimka u ahayn ay ka baxayaan safaaradeeda ee ku taala caasimadda Lebanon Beirut oo kadib xilli markaasi ay u muuqato in saameyn xoogan ka dhalan karto dagaalka ay kala dhaxeeyay iyada iyo waliba
Iran. Go'aankan ayaa yimi iyadoo xiisadu markaasi sii xoogaysanayso ama ay xoog ku jirto gobolka, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu markaasi u hanjabaya tallaabada military ee uu markaasi ka qaadi doono Iran haddii aysan heshiiskan gaarin ama barnaamijkeeda nuclear-ka aynan dib ugu laabanin, iyadoona horaantii Iran ay u ballan qaaday inay markaasi argoosan doonto haddii Mareykanku uu markaasi soo weeraro, iyo weliba saldhigyada kale xarumaha Mareykanka ee bariga dhexe ee markaasi loo maleynayo in ay yihiin bartilmaameedka suurtagalnimada ku ah in Iran iyana ay weerari karto. dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa isna dhankiisa war-saxaafadeed uu soo saaray si adag uga hadlay Marco Rubio dibna u dhigay markaasi safar uu qorsheyn lahaa inuu markaasi ku tago Israel, isagoo markaasi shaacinin sababta la xiriirta. Safaaraddu waxa ay weli markaasi shaqeynaysaa in ay markaasi shaqaaluhu ay joogaan goobta tan iyo weliba xilligii ay bilowday in gebi ahaanba ay ka saarto, iyadoo Mareykanku gebi ahaanba uu amray in dhammaantoodba laga soo saaro xulufaysiga iyo weliba dhammaan shaqaalaha halkaasi jooga, waana sababaha ugu waaweyn waqtigan. ilaa iyo weliba haatan 50 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha safaaradda Mareykanka ayaana markaasi lagu amray inay ka baxaan, iyadoo 32 xubnood kale oo shaqaalahina ay markaasi qoysaskoodu isniintii markaasi ay ka duuleen garoonka diyaaradaha Beirut si markaasi laga soo xigtay sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha ee u shaqeeya wakaaladda wararka Reuters. waana sababaha ugu waaweyn waqtigan ay ugu adag tahay in Mareykanku gebi ahaanba shaqaalihiisa meesha ugu saarayo, iyadoo si weyn markaasi loogu baqdeen qabo in tallaabo kale uu qaadi karo Mareykanka, maadaama dagaalka ka dhexeeya Mareykanka iyo Iran uu muuqdo inuu sii xoogaysanayo walow aan ilaa haatan weli tallaabadooda aysan cadeyn. laakiin qorshe kasta oo adag oo saameyn ku yeelan kara ayaa la tilmaamay waqtigan in gebi ahaanba labada dhinacba ay